waxaa xarunta Isroon farxad u ah in ay idinku wargeliso xiriirka wada shaqeyn oo ay la wadaagto barnaamijka bixinta kirada guryaha ee gobolka Minnesota kaasi oo loo yaqaano Rent to Help Minnesota program. Haddaba haddii adigu ama qof kale oo aad taqaano ay u baahan tahay in laga caawiyo bixinta kirada guryaha, fadlan la soo xiriir xarunta Isroon. waxay ka caawinaysaa in laga bixiyo kirada guryaha. waxaad xaq u leedahay in laga bixiyo lacagta kirada guryaha ee waqtigeedu dhaafay laga soo bilaabo bishii Maarso ee sanadkii 2020. waxyaabaha laga rabo in aad keento waxaad kamid ah warqadda aqoonsiga qofka qoyska mas'uulka ka ah sida laysanka, baasaboorka ama warqad loo yaqaano ITIN ama nooc kale oo aqoonsi ah. nuqulka ama koobiga heshiiska guriga aad degan tahay haddii aadan haysan kayn wax cadeynaya heshiis dhex maray adiga iyo qofka ama shirkadda guriga iska leh. fadlan keen number lagala xiriiro shirkadda ama qofka iska leh guriga aad degan tahay sida maamulaha. fadlan la imow ama keen cadeyn muujinaysa dakhliga ama dhaqaalaha soo gala qof kasta oo da'diisu ka weyn tahay 18 oo guriga kula degan, si go'aan looga gaaro in barnaamijkan aad xaq u leedahay iyo in kale. tusaale, cadeymaha laga rabo waxaa ka mid ah sida foomamka canshuurta lagu xareeyo ee loo yaqaano 1040 W2 ama 1099. sidoo kale fadlan keen xagga dambe ee jeegyadii aad qaadatay 2 bilood ee ugu dambeeyay iyo warqad cadeynaysa in shaqadii ka dhamaatay oo muujinaysa in aad xaq u leedahay helidda dhaqaalaha shaqo la'aanta marka aad tahay qof qaata unemployment benefit. cadeymaha aad ku codsan karto kaalmada waxaa ka mid ah qoraal cadeynaya in la soo dhaafay xilligii kirada guriga aad bixin lahayd, sida warqad uu kuu soo diray qofka guriga iskale ama shirkadda. haddii aad hayso biilo la soo dhaafay sida biilkii biyaha, qashinka, korontada, gaaska ama wax kasta oo guriga la xiriiro. haddii aad hayso warqad muujinaysa in maxkamad laguu gudbiyey ama laguugu hanjabay in guriga lagaa saari doono haddii aad bixin lacagta laguugu leeyahay. haddii ay kugu adkaato in aad keento dhammaan macluumaadka lagu weydiiyey oo qofka ama shirkadda aad guriga ka kireysatay ku siin waayaan, waxaa jirta koox naga tirsan oo qaabilsan arrimahaas kuwaasoo kaa caawin doona sidii aad ku heli lahayd macluumaadkaas oo dhan. mahadsanid. waxaan ku rajaynayaa inaad ka faa'iidaysato fursadan lagaga bixinayo lacagta kirada guryaha maadaama lagu jiro xilli aad u adag. wixii faahfaahin ah oo aad doonayso in laga caawiyo, fadlan nambarada waxaa ku soo qornay shaashada.